وفد hogaaminaya Professor Ahmed Ismail Samatar isla markaasina uu ku helinaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ujeedada wafdigan ayaa waxa ay ku qotantay si uu soo indheeyay Professor Ahmed Ismail Samatar xaaladda nololeed ee ku nool yihiin guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka Nisalel markii uu soo gaaray degmada Seylac wafdigu hogaaminaya Professor Ahmed Ismail Samatar ayaa waxa isagoo halkaas xafiiskiisa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha dowladda hoose degmada Seylac Hussein Idla Barkhalle iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Seylac isagoo uga warbixiyay marxaladda haatan ay ku sugan tahay degmada Seylac degmadeenii Seylac ee qadiimka ahayd Seylac cid walba yaqaano adduunka dushiisa ku nool iyo mooyaane Seylac waana soo dhex martay wixii aad ku aragteen way ku aragtay professor waxa laga yaabaa 14 milyan 300 goor soo marsay 13 ahayd wax badan uu iska bedelay wax badan halkiisii uu taagan yahay haddaan iska warramno waxa iska bedelay professor نوع قول بدلنا سنة قول بحنا قبل نص ساعة دوكمنت وقسم عنا أو توس لبض يكون يسد حيتهم كيدا الكورد صوم مريض بري إلا قلبه ما أنت نقول عن سدد كي وصوم مريض هذا حالة يكون نوريين يدب إنه ولا صار شيء كيستو فرصنا ضد بدينا ندير سكو أرجنا أدي البيت واحد لقى مبسوطه ويقول رئيسي قضدي عن ملك أنا أقول هنا إنه كان الموضوع سميه هو كلون لقى سوق قبتي بط وقت الدول لقى سوق قبتي سي عافيمات بدل للو قشقي وحكى عن لو قدرين وتونا أكثر لو أجاجي دانو كلون عين كاسة كمان كونين سومالي لاند أنت نقصون نقولي إلا لبكون يصدق يتوه بربرنا نحو كلون عين كاسة كمان ننعسه يوم بكون نقوم وين ماله بوجي عليه صح صح oo de meel lagu jecel yahay oo jacayl gacankaas hadii lagu tusay waxa doonaysa inaad dib ugu noqoto oo aanay dhamaande ayaa doonaysa taas marka iyadee mahadnaq aad ku celiso dadkii oo waxaanay hanuun tixir oo maalin daayo deetana la iska iloobay aanina iyagiina inaan ka waraysto de baahiyoodu waxay yihiin oo baahiyoodu deetana la istabadhigo oo mar qura la qaban karo waxa la istabadhigo to ugu daran to ku xigta sida looga iyadoo cilmiyeysan loo fahmo deetana inaan aniguna markaa fariintaa ka soo qaadon xisbigii kulmiyeen ku jiray u geeyo iyagana aan u sii taataabtoon carabka maxaan ku raacay dibnaha u sii qoyo campaign-kii weli muu bilaabmine xisbiga kulmiye waqtiga cusub ee soo socda inuu dadka ku qanciyo waxa uu soo wada ee uu doonayo inuu wax ka qabto barnaamij taana inaan dandansiiyo laakiin buhdeeda waxa loo soo noqon doonaa wixii September ka dambeysay sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay Professor Ahmed Ismail Samatar dariiqa u dhaxaya tuulada Ashacado iyo tuulada Looyacado ee ku taala xuduudda u dhaxaysa wadanka Djibouti iyo Somaliland ku dhawaad 100 iska rogooyin oo iyagu halkaas ka gura ciida inta u dhaxaysa tuulada Ashacado iyo magaalada Looyacado isla markaasina iska rogooyinkaasi ay burburiyeen dariiqii adeegsan jireen baabuurta u kala gooshta Somaliland iyo wadanka Djibouti isla markaasina in badan ay ka cabanayeen dadka ku dhaqan deegaankaasi galbeedka waxyaabaha anigu aan ku arkay wareegayga shayga ugu horeeyay markiiba indhahayga qabta jirkaygana challenge ku noqdo waxa weeye wada xumada dhulka taal loo yaacdo mar baan ka noqon kara waayo dhul ciida laga qodo baa la yiri oo laga qaato Djibouti iyo dhulka la geeyo halkaas markaad eegto ilaa magaalada Looyacado wadadeeda qalbigii baan naga jabay waan daalnay waan maxaan ku raayay si aad iyo aad baan ugu xumaaday meel la mara ma ahday waxaad moodaabadee dhulka in dagaal lagula jiro oo environmentkii dabeecadii wadadaas baabuurtu marayeen oo si xun loogu takrifalay oo dee foolxumadeeda iyo siday tahay aad yaabayso waa wax laga naxaweeyey waa inay jiraan ummadan Somaliland dadka madaxda u yihiin arrimaha caynkaas inay ka warhayaan waayo waa laba amurood mid ciidiyo la iska qaadanaya la yiri oo wax shaqana xitaa aan laga helay iska daacasho dawladii wax ka soo gasho talabaad wadadii burburtay oo baabuurada marayaan dan ka lahayn la burburinayo marka ay dabeecadii degmada ay baabiinayso waa waddankiiba marka dagaal lagula jiray marka dadkii madaxda ahaa xagee ku maqan yihiin وعلى أحمد ديريه علي دقدرول تي في عالمي SAB TV مقالة سيلع.